anigoo ah kalkaalisa Amal Axmed waxaan rabaa inaan idinla wadaago fariin aad u muhiimsan oo ku saabsan toddobaadka talaalka adduunka ee sanadkan toddobaadka talaalka adduunka halku dhigiisu waa aynu ka wada shaqeyno helitaanka talaalka ee qof walba toddobaadka talaalka adduunka ee sanadkan 24 ilaa 30 Abriil 2025 waxa uu xoogga saarayaa muhiimadiisa in la gaarsiiyo talaalka qof walba iyo meel walba oo joogo ujeedadu waa in la xoojiyaa wada shaqeynta bulshooyinka hay'adaha caafimaadka iyo dhammaan daneeyaasha si caruurta ay u helaan iyo dadka waaweyn talaal tayo leh badbaado leh magacayga waa Awal Heykal Maxamed waa madaxa talaalka isbitaalka Dalmar maanta waxaan rabaa inaan wax ka sheego talaalku waa horumarka ugu fiican ee bani'aadamku uu gaaray dhinaca caafimaadka wuxuuna badbaadiyaa malaayiin naf ah sanadkiiba gaar ahaan caruurta wuxuuna ka hortagaa cudurro badan oo caruurta ay ku dhiman lahaayeen annagoo ah shaqaale caafimaad waxaan qayb weyn ka nahay sugidda talaal loo siman yahay waxaan si dhow ula shaqeynaa bulshada si ay u helaan talaal ay xaq u leeyihiin si ay nafta ciyaalkooda u badbaadiyaan aan midayno dadaalkeena si aan uga hortagno cudurrada talaalka lagaga hortagi karo si aan u dhisno bulsho caafimaad qabta Dalmar Specialist and Teaching Hospital. Higsigeennu waa caafimaadkaaga.